lix kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee Somaliland ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho iyada oo markaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare uu noqday senatarkii ugu horeeyay ee la doortay kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayay oo ahaa Siciid Cumar Xuseen. gudoomiyaha guddiga doorashada gobolada waqooyi Khadar Xariir Xuseen ayaa ergada u gudbiyay in si gacan taaga ay ugu codeeyaan sida uu markaa qabo habraaca doorashada, waxaana ansixiyay 44 mudane halka 2 kamida ay ka aamuseen, waxaana natiijadani markaa ay ka dhigan tahay in mar kale dib loo doortay Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo 4 sano ee la soo dhaafay ahaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. sidoo kale wasiirka dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ku guuleystay kursiga labaad isaga oo helay 29 cod, halka gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan oo la tartamayay uu helay 12 cod. dhinaca kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa ku guuleystay kursiga saddexaad isagoo kaga guuleystay Professor Maxamed Maxamuud Allabari iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cismaan Cali oo la tartamayay. Cabdiraxmaan Cismaan Cali ayaa ku haray wareegga koobaad, waxaana wareegga labaad isugu soo haray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo sidoo kale Professor Maxamed Maxamuud Allabari, iyada oo markaa Professor Samatar uu ku guuleystay 25 cod halka Allabari uu helay 22 cod. kursiga afaraad ayaa waxaa ku guuleystay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo markaa ka adkaaday Cabdikariin Maxamed Xasan isaga oo helay 28 cod halka uu Cabdikariin helay 17 cod. labada kursi ee kale ayaa waxaa ku kala guuleystay Leila Axmed Ismaaciil Geesood iyo sidoo kale Bilaal Idris Cabdullaahi.